doonaysaa xaalad walba kugu taagan culays walba ku haysta inaad ka guulaysato waan dareemayaa wax walbaaba maadaama aan ahay qof dhalinyaro inay iska jiraan xaalado adag inay jiraan waxyaabo aadan jeclaysan oo laakiin ku soo waajahay waxaasoo dhan waxaad kaga guulaysan kartaa ilaahay xuskiisa haddii aad samayso maalinkii 100 mar oo subxaanallah ama se aad dhahdo subxaanallah wa bixamdihi subxaanallahi alcadiim waxaad dareemaysaa nafaas fara badan waxaad dareemaysaa in culayskii iyo xaaladii ku haysto dhan ay halkaas ku sii dhamaanayso mar walba oo ilaahay u dhawaatana wax walba ku haysan jiray culays walba ku haysan jiray oo ka mid tahay shaqo la'aan iyo xaalad walba oo dan jeclaysan oo laakiin ku soo waajahaysa waxaad ku iloobaysaa ilaahay jidkiisa aniga dhalinyar ahaan ama se aniga ka qof ahaan markii hore waxaan ka raadin jiray wax walbaabo oo guul aan u arkayo inaan bili aadanka la sheekaysto in aan ma aragtay dadka u sheego xaalka ay haysta iyo dhibtaan ku suganahay laakiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala markii uu igu soo hanuuniyay jidka wanaagsan oo aan helay in wax walbaabo oo iga maqan aan ilaahay agtiisa ka heli karo wadadaas maalinkan helay ayaan guul oo dhan hantiyay waxaan hubaa inaad heli doonto wax walbaabo oo maskaxdaada ku jira hami walbaabo ka dhex guuxay inaad heli doonto sababtoo ah inagu waxaan leenahay marjac aanu laabana marjacaas oo ah ilaahay subxaanahu wa ta'aala qof ilaahay haysta oo ilaahay jidkiisa iyo ilaahay amaamirtiisa haystana ma guul dareysto aakhirana haddaad guulaysato oo ilaahay oo ku qoslaya oo janno kuugu baaqayna aad ma aragta aakhira hesho adduunna ilaahay adduunka lagu haga keeno ilaahay baa subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay qofkii jidkayga iyo hanuunkayga soo raaca adduunkana aad aragtay oo dhan lagu hiisan keeni doona qofkii iga jeedsadana kaas adduunka macnaheedu waa lagu uu ku dhex wereeri doonaa afarta jahana waa looga daadin doonaa adduunka intuu raacdaynayana khaatimo xumo u dhiman doonaa bahalkan yar ku tasbiixso wax walbaaba oo damacsantayna hala aadin dhalinyaro hala aadin qof kale oo ku tuumiso amuur ee la aad ilaahay oo ilaahay la sheekayso subxaanahu wa ta'aala laba maalin ka hor waxaan idin sheegay wax igu dhacay laba maalin ka hor waxa jirtay amuur aan jeclaysanayay inaan helo oo iga istaagtay oo muhiimna yahay laakiin shaydaankii markiiba wuxuu ifaray inaan isku buuqo oo wixii ku istareyso laakiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala maadaama hanuunkiisa iyo jidkiisa aan ku sugnaa ilaahay wuxuu igu soo reeday markiiba inaan samro kadib samirku wuxuu sababay in aan talaabo wanaagsan sameeyo talaabadaas oo ah inaan masaajidka tagay oo aan sameeyo tasbiix fara badan quraanna aan aqriyo 3 maalin ka bacdi wallahi amuurtii soconaysa ayaa lagu hayga timaaday soconayso